muuqaalkan aad arkaysaan waa barakacayaasha ku nool magaalada Tanjawhar ee caasimadda Hirshabelle waxayna sheegeen in roobabka ka da'ay magaalada Tanjawhar ee caasimadda Hirshabelle ee dhibaatooyin fara badan ay kala kulmeen waxayna sheegeen in aysan haysanin wax hooy ama harsasho waxay ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan ay ka codsadeen in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo waxa kale ay sheegeen in aysan haysanin agabyada yaryarootiga ah sida katiifad ama xasiig iyo marakaneeco waxayna sheegeen in gargaar sida uu dhaqsiyaha badan ay la soo gaaraan walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan maraynu saaka booqanay waxay inoo sheegeen in ay dhibaatooyin fara badan ay ku haysato meesha ay ku nool yihiinba waa kuwan ayaga oo ka hadlaya arrinkaas xal iyo shalada ay waxay dhaan waa nagu da'ay micnaha halbac oo maxay dhaaniyad aanala sii bacda inaan saaran kulay guriga ilaa hadan waa naga qabooyaa kulay tadan la'aana wayna haysaa waxna ma haysano rafaad irasiyaan ku jirnaa waxaan u baahnaa si degdeg inaana laga soo gaaro u baahnaa qaxooti meesha ku dhibaataysan oo ku tawaalacday ayaan nahay inaana laga soo gaaro si degdeg aan u baahnaa anaga daryeel xoog laan u baahnahay daawo ma haysano ilmayna askool ma haystaan dugsi ma haystaan waa ina gacan weyn meeshaan waa ku tawaalacsanay anakii ilmahayna waa isku korrafaadnay waxaan ku leeyahay bacda noolisi waa bac oo gabal oo buushka noo wada dabooleynin xali biyo iyo daadana qaaday wax walba u baahanahay dhirmaay waana dhameysay dhaxan waana dishay hana wax noo qabtaan u baahanahay raashiin ma haysano wax barasho ma haysano biyo xataa cariiriyaan aaga jirnaay hay'adda gargaar kale inay gacanta naga qabtaan u baahanahay baahiyaanay samaanta waa lee soo garaacay ana cooska waa leega soo garaacay ilmahaygu waa gaajeysan yihiin ana ka dhagna isku halaagnaho cid wax isdaanta male dad masaakiin oo meesha isku yimidaanahay ina noola gargaara u baahanahay dhaqoo iyo coosa lagu noolyahay dhaqoogu waa soo waynay waa soo helay noo imaade sinyeeri ma haysani badar ma haysani iskool ilmi dugsi wax barasho dhan ma noo haystaan si kasta ay biyo ku soo galooyaan bacdiya yar hadda waxaan u baahanahay bacyaal waaweyn inaan noola keeno sinyeeri noola keeno wax oo raashin wax on waxaysan on dhibaat kasta aan qabnay ilmahayni iskool ma haystaan dugsi ma haystaan waa ku dayacsanay meehan guriyihii bacyaalkii waa ku gaagaabayeen biyihii hoos ay laga soo galeen biyihii waa dhex jiifnay hadda waxaan ka codsanaynaa oo walaalnimo iyo waji iyo wanaag waxaan ka codsanaynaa hay'adda sharafta leh yaa gobol iyo dadma wax allaala waxay noo soo qaybaan yaa walaalahayna ay garabka naga qabtaano aan ka codsanaynaa sansiyeeri ma haysano biyi ma haysano maxay dhaw biyi hoos galna baan ahaayay yaa dhirmaayo meelkayno toosi hoosay dhogortaan idigayn waa ku dhamaaday meehan waxaan dagagnahay 4 sano oo gu iyo dar leh aan dagagnahay halaan hoobadkan wixii ka dambeeyay yaa wax oo la soo dhaafay waa taas magxifaanay kari yalaala meehan dagagnahay dhibaatadaas aan haysa mashaakil xoog iyo dhibaatadaas aan haysa xaggan waxaan laga soo guuri biyo iyo intay dad aan xaggan naga soo guuri ugu dambeyn waxaa meesha ka hadlay gudoomiyaha kaamka Tabakal wuxuuna uu sheegay dhibaatada ku haysata meeshaasi wuxuuna yiri isagoo ka hadlay arrinkaas roobkii xalidu ay saameen waxay nagu yeesheen in mataqaana teendadii aqalihii lagu hoos jiray in bac ay saarneen oo goodadal ku xirnayeen oo daadkii oo noo soo galo oo mataqaana ilmihii ay soo jeedaan waagu bariyo marka taas aaweed dhibaatadaas ayaan ka codsanaynaa in mataqaana nalaga gargaar hadduu ilaahay raali ka noqdo anigoo ah gudoomiyaha Tawakal waxaan meeshan ka cadeynayaa in mataqaana dhibaato ay iska jirto haddana uu noo bilowday roobkii raxmad ilaahay khayr ka badneed haddana waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa in mataqaana nalaga kaalmeeyo oo waxaan u baahanahay marakaneeca waa u baahanahay teenayaal waa u baahanahay mataqaana bac waan u baahanahay caafimaadkana sidaas oo kale inta u baahanahay waxa iska jira hadda waqti roob lagu jiraa in caruurta iyo inta dadka tag daran in ay mataqaana shumbiyoodka uu ku dhaco markay saastaa waxaan jecelnahay in mataqaana aan ka codsano ummadda islaamka iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in mataqaana naloo soo gurmado oo mataqaana wixii ilaahay raali uu ka noqdo nala siiyo barakacayaasha ku nool magaalada Jawhar ayaa dhibaatooyin fara badan ku haysata kaamamka ay ku nool yihiin sida
markii roob uu yimaado roobka guga oo kale uu guryaha ka qaado waxaa sanadkan looga cabsi qabaa fatahaad in uu u geysto webiga maadaama ay webiga hoos degan yihiin waxayna ummadda ka codsadeen in ay la soo gaaraan gargaar bini'aadanimo meel walba ay joogaanba waxay ka codsadeen dowladaha Soomaaliya ama dowladda Hirshabelle in ay ka rarto meeshaani maadaama oo laga cabsi qabo fatahaad ama biyo degeenba. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa Jubba Shabeelle News Jowhar.